badhasaabka gobolkaasi Gabiley mudane Xamse Maxamed Cabdi iyo maayirka degmadaasi Togwa Jaale mudane Cabdicasiis Saleebaan Xasan ayaa saaka waxay soo kormeereen buundada weyn ee isku xidha degmadaasi Togwa Jaale iyo gobolkaasi Gabiley kaasi oo khasaare baan ay soo gaarsiiyeen roobabkii mahiigaanka ee ka daayay deegaanadaasi badhasaabka gobolkaasi Gabiley iyo maayirka degmadaasi Togwa Jaale oo faahfaahin ka bixinaya khasaaraha soo gaaray buundadan ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahay sida uu sheegay gudoomiyaha degmada Wajaale wadada ay joogna waxa weeyaan wadada qabata Wajaale waana wadada uu gudoomiyuhu inoo sheegay inuu dhisay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo reer Wajaalena ay ugu magac dareen wadada magaceeda Axmed Nuur wadadan waxa horta kulli waxaynu ku soo jiray waqti abaareed oo aad u daran waa Ilaahay mahadi maanta mar hadii meelo roobkii wax yeelay aynu dul taaganahay oo abaartii Ilaahay naga soo jabiyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala وتلك الأيام نداولها بين الناس شلي وحين كعبنيني بيو الآن يأوار ما أنتنا وحين كعبنينا بيو خسارة يو دامج كاي كينين كل وضوء هذا وحيو باهنتهاي شقة إمرجنسية سير رواب كدنبه أي ماذا وضركتان هل كان لامجي أفك شلتركي أفك وصارنتي ضاد كدنبه أي ماذا وحقيني laamiga ayuu goynaya marka waxay u baahan tahay shaqo emergency ah kulay buundooyinka iyo waxaas waxay noqon doonaan waqti kale in insha Allah biidnillaahi baari la qabto laakiin hadda waqtiga xilli roobaadkan ku jiro waxay u baahan tahay in lagu soo celiyo arakaawadi ilaalinaysay ama shelterkii ilaalinayay laamiga marka waxaan isla garanay gudoomiyaha deegaanka in roobab sudan meelaha geeridu gaadhay la buuxiyo compaction ku sameeyo biidnillaahi kariim iba mahadle halka waxa ka dhacday barwaaqo roob ba ka daay waa kaabadii mashruuca Togwa Jaale banka halkan ayuu nimcadii Ilaahay u geysatay dhibaato wadada waxa la yiraahdo wadada waxa dhisay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo wada Axmed Nuur baa la yiraahdaa wadada khasaarahaas buu geystay dadku waxa loo baahan yahay oo kaliya wax dhibaato ma jiraan waa nimcada Ilaahay baa yaa dhibka yaa inta khasaaraha keentay sidii si degdeg ah wax looga qaban lahaa baan halkan baa ka diranaa aniga gudoomiyaha gobolka mudane Xamse Maxamed Cabdi oo aanu halkan isku nimid maanta kaabad bankan Wajaale oo dadku soo maray waxaanu halkan ka gudbinaa sidii si degdeg ah wax looga qaban lahaa loo gelin lahaa dhowr qasabadood oo kale si ay biyuhu wada dhaafaan dib kale oo ka jirtaan ma jirto waxa loo baahan yahay in si degdeg ah loo geliyo qasabada ay biyaha mari karaan oo 4 5 6 ah ee u dhaxaysay labada dal ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waddanka Itoobiya iyadana biyuhu waa kuwan maray habeenkii dhaweyd inta ay jareen wadana buuxinay hadana xalay intii way ka qaadeen intaasi kadib badhasaabka gobolkaasi Gabiley waxa uu sidoo kale kormeer ku soo sameeyay buundada weyn ee isku xidha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka aynu jaarka nahay ee Itoobiya kaasi oo khasaare baan uu soo gaarsiiyay roobkii ka daayay dhowrkii caanamal ee ugu dambeeyay degmadaasi Togwa Jaale buundadan isku xidha dalka aynu jaarka nahay iyo Soomaaliland ayaa waxa ka muuqda khasaare baan uu geystay roobabkii ka daayay deegaanadaasi gabagabadii badhasaabka gobolkaasi Gabiley iyo maayirka degmadaasi Togwa Jaale ayay waxay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland iyo wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta Soomaaliland Khadar Cabdi Cabdilaahi shabakada caalamiga Oodweyne News degmada Togwa Jaale